kulan looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka hay'adaha samafalka oo ay u hayaan bulshada isla markaana ay u gaarsiin lahaayeen deegaanada ka fogfog magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cabdinaasir Nuur Socdaal warkaasi inoo faahfaahay. kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda qaramada midowga qaabilsan arrimaha isku xirka bini'aadanimada ee la yiraahdo OCHA. waxaa ka soo qayb galay madaxda gobolka Jubbada Hoose iyo kan degmada iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'addaasi. intii uu socday shirkani waxaa looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ay wax badan ay uga bedeli lahaayeen qaabka ay dadka ugu qabtaan isla markaana howlaha samafalka ay bulshada u hayaan ay ku koobeen kaliya magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland. gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni oo ka mid ah madaxdii kulankan ka qayb galay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta hay'adda isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee OCHA. waxa uu sheegay in hay'adaha samafalka looga baahan yahay in shaqada samafalka ay hadda kadib xoog ay saaraan sidii lagu gaarsiin lahaa dadka ka fog magaalooyinka oo ay aadaan meelaha magaalada ka baxsan. ugu faraxsanahay maashaha inoo yimaadeen Jubbaland TV runtii maanta waxaa halkan ka dhacay shir u dhaxeeyay UN OCHA hay'adda la yiraahdo United Nations Coordination Humanitarian iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Hoose oo wada jira ujeedkiisa iyo iyo waxyaalaha keenaya caafimaad darrada sida hadda cudurkan kalooraha ee ka jira ama calool shumbiyoodka ee ka jira dhammaan deegaanada sida Kismaayo kale uu ka jira Afmadow iyo Doobley iyo nawaaxigeeda oo dhan uu ka jira Badhaadhe ama Joorre iyo nawaaxigeeda uu ka jira waana kuwa in badan soo noqnoqda runtii cudurka daacan caloolaadka uu jira uu soo noqnoqda inta hadda badan sanadka hadda dhammaan raba dhowr jeer buu soo noqday haddana uu taagan yahay sababaha keenay maxay marka sababaha keenay waxaa la isla qiray inay yihiin biyaha. shirkan ayaa daba socda shirar hore u dhacay oo looga hadlayay in hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Jubbaland inay banaanka howlaha